haddeer na rabtay inay naga saarto oo lagu dacweeyo oo baaskoolad macaamaantana lagu soo baxay qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee degmada Cerigabo oo maanta mudaharaad salmiya loo hortagay xarunta maamulka gobolka Sanaag ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen madaxa mashruuca hay'adda SDF ee gobolada Sool Sanaag Faysal Baraare oo ay ku eedeeyeen inuu mushaarkoodii uunsaday isla markaana ay sheegeen in sanadkii hore uu ka saxeexay inay helayaan lacagtooda hase yeeshee aan wax jawaab celin oo ku aadan mushaarkooda aanay ka helin geesta kalena waxay ka hadleen gacanka hadal iyaga iyo isaga dhexmaray oo sababay inuu mas'uulkani uu baaskoolad ula soo baxo markii ay u gudbiyeen cabashadooda waxayna isuduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag ku eedeeyeen inay ka waayeen wax mas'uuliyad ah oo iska saaray arrintan waa sida ay hadalka u dhigeen waxayna fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland oo ay ka codsadeen in dulmiga lagu hayo uu wax ka qabto inay arintayadan shaqaalahan caafimaad inay noo eego oo noo dixgeliyo oo naga qabto wasaaraddan tuugada ah ee SDF la socotay naga qaaday lacagtayadii hore agreementka haddana aanu agreementkiina laga diiday madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa inaad soo dhex gasho cusbatalka wasaaradda cusbatalka inaad soo dhex gasho wasiirku xitaa waa ogyahay waxba nalooma qaban sanad iyo 4 bilood oo hore aan saxiixnaanu laanay madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa inaad wax ka qabato wasaaradda caafimaadka anagoo shaqaalaha inaad noo doonto xaqayagii xuquuq waxaanu lahayn waxaanu ka codsanaynaa mudane Muuse Biixi Cabdi in ma weelana lagu wada sida carruurta yar yar oo xaqayagii maqan yahay oo kriimankayagii lacagtiisa ay maqan tahay ab sanad iyo 4 bilood uu naga maqan yahay sanad iyo 4 bilood yada naga maqan tahay markaan xaqayagii weydiinayno inuu baraaro Faysal Baraaro maanta baaskoolad noo la soo baxay oo yiri waydan leynayaaba ilaahay baa laakiin sanaga badbaadiyay isdu waxayagina waa joogay si toos ah u soo faragaliyo madaxweynuhu waxaan waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi anigu waxaan ahay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag ee hay'adda shaqaaluhu qiimeysay imtixaanka ka qaaday waqtigii qiimeynta waxaan ku waxa dhacday in hay'adda SDF ay noo timi sanadkii hore oo ay tiri shaqaalaha wixii bayroola ee mushaharka dawladda qaato waa gunaynayna haddii ay shuruudaha buuxiyaan shuruudihii waan buuxinay waxaan ku agreementkii waana loo keenay waana laga saxeexay akooma furta baa la yidhi waxaan ku maantana waxaan ku shalay فيمي وحلينتي هوران وحوسدا مركان بڑا صاحبka iyo waanu tagnay isuduwaha waanu sheegnay waxaan ku isuduwahayga nama qancin markina baraarena waxaan ku nirina baraaro dalka maslanaad u gashay aad u ka yeelaysa baastool baabu soo bixiyay hadda saasan ana waxaan ku wax kasta ka magaranaa waxaan ku waxaan leeyahay anigoo ah wasaaradda shaqaalaha caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan Cerigabo inta muddo badan ilaa maanta dalka la soo galay u shaqeynayay qoladii hay'addu shaqaaluhu imtixaan ka qaaday aan ahay saacada laga bilaabo in ay wasaaraddu meeshii doonta ay geyso sanadkii aan SDF u saxiixnay waxaan ku si degdeg aan u helno ee walibana lagu ajaba soo lagu soo baa wasaaraddu ha geyso cid doonta furan hay'adda SDF oo sanadkii hore naga saxiixday agreementkii hore naga baxday kii dambana haddeer bilaabaysa haddeer na rabtay inay naga saarto oo lagu dacweeyo oo baaskoolad macaamaantana lagu soo baxay marka madaxweynaha waxaan u diraynaa arrinkayaga haddaanu si degdeg ah wax uga qaban inaan anagu aanu iska qabanayno meel aan meel iska saarayno dhinaca kalena madaxa mashruuca hay'adda SDF ee gobolada Sool Sanaag Faysal Baraare waan isku daynay inaan wax ka weydiino eedaasi loo soo jeediyay ayaana suurtagalin xilli looga yeeray taliska qaybta booliiska halkaasi oo ay wararka qaarkood ku waramayaan in dacwad kiiskaasi la xiriidha awgeed lagu yeeray Saciid Muuse Faarax Saciid Qurbaawi warbaahinta Badacas TV magaalada Cerigabo